awr yar oo la oranayay xabad halkaas ayaan ka bilaabay ilaa iyo gabowgiisa dabadeetna labadaasi qaybood ayaa guda galaya way noo bilaamatay sheekadii buugga kulleeto oo inagu taaban doona inta badan soo diin doona akhristayaasha markan waxaan soo leexanaynaa Dr. Nimcaan oo buugga soo akhristay oo jeclaan lahaa inuu inaga siiyo warbixin guud ama faalin waad masantahay way masantahay hadana magta mas'uuliyadda asunta buuggan marka horta waxaan inaan xagga ka sheegay rabay farxadda iyo moogtahay muhiimadda aniga ay leedahay inaan ka hadlo marxaladan buugga mahad ay ku soo saartay waayo mahad waa gabadh dhalinyar oo buuggeedii u horeysay maanta soo qortay muddana la soo tacabtay oo la soo daashay من 2003 إلى iyo imika waatan moogtahay soo bixitaanka buugga sanadkii hore soo baxay anu meelaha 2009 iyo meelahaas la kulmay mahado iyadoo xarunta baarista buuggan la dhex socoto moogtahay wax u soo daabac doonayso si loola qabto oo la aad u daalan markaas baan wax ogtay wixii aan tilmaami karay iyo wax la qaban karay la qabtay waayo inaan la dhiirigeliyo weeyaan cid dhalinyar ee wax qoraysa iyo maxay ahayd fikrada buugan ku jirtana iyadna goonaan uga hadli doonaa waa dhaxal reeb iyo moogtahay dhaqankeena iyo la soo tabinayo qarniyadan moogtahay ama ubadka andalnaya ubadka ay ku sii dhari doonaan marka de qorayaasha waaweyn de ma hayna moogtahay buugtooda laga sheekay qofka haduu imika bilaabayana aad buu baahan yahay garab taago oo loo fudeediyo oo moogtahay culays weyn baa kale saaro iyo cabsi baa jirto malaha waxaan wuxuu isleeyahay buuggan malaha ma qalmo oo wali imika buug weyn ma ahan malaha waxaad ku qortay wax muhiim ma ahan marka loo barabar dhigo moogtahay qaamusyada waaweyn ee soo saaray iyo moogtahay buugta waaweyn ee soo saaran gabayaasha waxaas laakiin waxaan tusay qaybgalkan laga soo qayb galay moogtahay xafladani iyadana ku dhiirigeliyay inay barnaamijkan iyo qabato si buugga qiimuhu leeyahay buuggani marka buugga qiimo weyn buu ku fadhiyaa qiimaha soo dhowr loo kala saari karo koobaad waxa weeyaan horta qof dhalinyar oo Djibouti waliba gabadha oo buug soo saartay buug niyada gashtay soo saarto oo wallahi iyadoo wax wadankii moogtahay dariiqyo loo jeexo oo cayiman oo moogtahay u fudeedinayo dadkii soo gacan qabanayo moogtahay aad looga shaqeynay wali jirin inkastoo madaxweynuhu dadaal badan qabto moogtahay cidii wax la soo gaarsiyo warkeedaba u daabaco haddana dib baa iska yar jirto moogtahay inaa formalisay wax lagu dhaafo fariska ma dhul moogtahay la sugay oo buugta la gelin karo oo lagu soo daabici karo guddiyaha karaan la sameeyo oo buugana la saxo marka dambe la hagaajiyo la daabaco si dad badan wax qori karaan marka iyada kaliya baniyada ku dhalatay fikradan ku dhalatay buugii way la soo daashay way soo saartay marka taas waa guulku waxa doonta waa qortay buugan ay soo saartay talabaad waxa ka soo dhaqaaqday in buugii yahay dhaqankeeni hay iyadoo afris ku qortay buuga hay moogta dhaqankeeni ku qayb kamid ah kaga hadasho oo qaybta geelo Soomaalida muhiimad weyn siiso oo qaali ku ah dadkeena nimka dhagata dambe geelo wuxuu ka dhigay ma garanayaan Soomaalida geelo wuxuu ahaa moogtahay aduu wahel aad qaali u ah marka in geeli sidii carruurta uga dhaadhicin lahayd neef geelo dhashay bilowgii ilaa iyo markuu afka baranay ilaa iyo markuu mutaraad qaaday ilaa iyo intuu weynaanayba hay kaga sheekeynayso afarasis moogtahay si awri afarasis ha ugu tala gashay inay ubadku fahmaan dhalintu fahamto marka taasina waxay muhiimad siinaysaa dhaxal reeb dhaxalkii la hadhayay geeli iyo Soomaaliyeed geelo la dhaqmaysay ubadkeenu hay ka fahmayeen ubadkeena iyo ubadka dunidaba imika afaris ugu qoray ku yar afaris imika dad akhristo buugani wuxuu garanayaa Soomaalidu si geelo wala isticmaasho waxay ku fasho iyo si geelo jeceshahay muhiimadda geelo leeyahay marka isagana xaggan dareen kaga dhashan baa dhici karta oo isaguna moogtahay oo isku sii taxalluujaan wax ka sii baarbaaro tasdaxaadna waxa raabtay waxa la wixii kelmadihii moogtahay geelo lagu hadlayay wixii qalab iyo moogtahay agab geelo moogtahay walaha hadii noqoto xarkihii hadii noqoto moogtahay kabadii la saariyay iyo hawliha u galay iyo magaca loo bixinay marka waxa soo dhanbay ka soo hadashay oo afar qaybood ka kala dhigtay qaybta moogtahay hore soo dhalashadii soo dhalanayay si moogtahay loo haw kabcay iyo qaybta dambe tababar buu u baahan yahay
ilaa tababar dhowr sanadood qaata oo u baahan samir oo u baahan maogtahay shaqo joogtaa oo u baahan maxay ahayd xirfad u baahan marka waxaasoo dhan wax baadiyo iska yaqaanay bay ahaydoo 4 sanadina wax loo samro la tababaro oo haddii kale khasaarayo in saacadda wax in la tababarana waayo haddii uu noqdo dibadgale deetaalku leeyahay awrka waa la yaqaan marka lama qabanay lama raran karayo ilaa hayin ay ka dhigayaan sida ay tababarka lagu adkeynaya gacanta lagu haynaya iyo waqtiga dambe moogta markuu tababarka qaato afkii la barayo hadalkii la barayo oo marka la rarayo keeno la odhanayo marka moogtahay la xidhayo marka la fadhiisinayo iyo wax badan moogta ilaa kelmadu markuu buuraha fuuri waxa la yidhaha maqlaan daydayo markuu meel siblanaysa ama meel dhagax yar qorraxa jiraan marka lugta markuu dhigayo meesha uu ku hubsadaa lugta uu dhigaayo ku adkeeyayo markaas uu dhigaa waxa la yaab leh farxaan nimcaano waxa laga oranayaa mar samayso إن يسوي ما يقع نقف خني بهذا كررية أوركا إكليبر خم جرنايو حاجة إنه ميزان كجبدين إنه حاجة كجبدين يلا ما جرنايو يسوي يلا قرنا يا سمس مركاسو تيج ساسو سكر حياة مركاسو ميزان كيسي كان ديل ترى ها مركبو كان وحوي مهم يدين بوليه وحنا كل إتنو كتشوجي مايو إن على سي موقتها عدوا بام موقت ما دام ينا عدد كمتها إن فرسمة كل عدد بها ستها إن على قدره سيان فيلم آخر الديسانيمي وحنا لا موقتها مكرتونز كا ويالك وقت مخرب كوكلاس كده وان كران أو أوركي ومالي فيلم طول من الناس ما دلش ديسي كالبسوا مرحلة مريا إلى طبعا حبوا ذلك سمع كلام موقته يالكو أفرزنا كده عودان. يعني هذا أنا ينضح وقرتسي شيكايسن أما شيكا أو كلاسنا نو شيك تبع عين شيكا حرير. إذا نلوشي جيل كورة مثلا نف مثلا نقص قاعدة أو كدكتين نف نلوشي سي عي لصعتي. الله صاحب كريم سادي وشيء مركات.